murtida maanta. ilaahow eexna ha nooga tegin aqoon la'aanna ha nugu cadaabin. aynu ka garanayno murtidan waa hawraar dadka muslimka ahi ku ducaysto oo Soomaalidu ku halqabsato oo gaar ahaan marka dadku garta gelahayo laga dhigto erayo lagu ducaysto oo dadka garta gelahaya ay naftooda ku geesiyoonaysiiyaan oo ay kalsooni isku geliyaan si ay cadaalad ugu dhaliyaan gartii ay galaan iyo doodii ay kala bixiyaan. sida ummadda Soomaalida ahi ay u tixgeliso oo uga walwasho cadaalada iyo garta soorideeda ayayna tusaysaa hawraarta murtideena maanta ahi. waxa ayna tahay sida la og yahay marka dadku wax qabanahayo ama ay doonahayaan inay arrin faraha la gadaan gaar ahaan dadka muslimka ahi waxa ay u qabtaan bisinka. sidoo kale ayay halhays ugu tahay ummadda Soomaalida ah inay tiraahdo marka ay gargalayso ilaahow eexna ha nooga tegin aqoon la'aanna ha nugu cadaabin. qofka garsooraha ah waxa laga doonahayo waxa ugu daran oo ugu weyn waa daacadnimo iyo dadaal uu u yeesho garta uu qaadahayo oo uu iska hubsado. marka laga sugahayo inuu dad kala saaro waxa looga baahan yahay sida murtideenu leedahay inuu arrintii degdeg u kala saaro oo qof waliba nabarka uu filanahayo uu u soo hormariyo ama ha ku xugmo wixii gartu ahayd ama asaga ha siiya labadaba waxaase dawadu dhalanaysa waxa weeyaan marka uu qofku degdeg u kala saaro dadkii ugu yimid inuu u kala xaq sooro. kan garyaqaanka ah ee loola imanahayo inuu kala bixiyo arrintii isdhex gasha ama uu kala caddeeyo gardarrada iyo garta waxa kala ah waxaa looga baahan yahay asaguna inuu cuskado murtidaas oo uu ogaado waxa uu gelahayaa inay tahay wax loo cadaabahayo haddii uu xumeeyo haddii uu hagaajiyana laga ajarsiinahayo. sidaa daraaddeed asagoo cuskanahaya eragaas ah ilaahow aqoon darrana ha nugu cadaabin eexna ha nooga tegin ayaa looga baahan yahay inuu ku kala saaro gartii loola yimaado. murtideenna maantana waxaanu ka garanaynaa oo aanu ka dhuuxaynaa sida ummadda Soomaalida ahi u tixgelin jirtay mar kastaba garta gelideeda iyo siyaalaha ay ugu baahan tahay in dar alla iyo daacad loogu ahaado degdegna loo dhameeyo.